halkan waa Hargeysa oo jeedaan meeshaan drip irrigation baa la saaray. Tubooyinkan waxaa waaye halkaas waa dulashaa dulaleer bay leedahay sida u jeedaan labada dhinac ka dulashaa. kuwa quality-ga waxaa lagu yaqaanaa inay sida noo xoog yihiin labadaas dhinac inta badan ay ka duleelaan. marka geed kasta meesha ku aadan biyahaas ayaa yaalo oo biyahaas ayay ku shubaysaa. xagga baa laga soo furayaa meeshaas waxaa ku dhagan fure yar. marka meeshaan dripkan muhiimadda uu leeyahay waxay tahay halkan geed laguma beerayo. geedka waxaa lagu beerayaa halkaas meesha duleesha ka ah halka ku aadan. halkan baa kale lagu beerayaa. marka halkan lagu beero biyaha waxaa loo baahan yahay kaliya inay ku dhacaan intii maxaan ku yiraahdaa geedkaas uu yaalo ama ku beerayaa. marka meeshan maadaama aanan geed ku beernayn lagama baahnaba biyahan inay maxaan ku yiraahdaa ku dhacaan ama biyo ay soo gaaraan. sidaa daraadeed geedka xididkiisu inaha waa u gaari karaa inaasay biyana ku yihiin meeshan maadaama aanan maxaan ku yiraahdaa geed lagu beeraynin biyuhu uma baahnaba inay gaaraan. marka biyaha ayaa halkan kugu beeqaansanaya. dripka sidaas oo muhiiman walba ugu yahay inay beeralaydu isticmaasho. waan u jeedaan hadda gurigan waa greenhouse Hargeysa ku yaala ka dhisnaa deertan 40 mitir lagu dhis 8 mitir waa 1600 oo geeda geli karta. marka tubooyinkan hadda kuwan 40 senti ay isku jiraan 30 senti waa la helaa oo duleelkaas iyo duleelkan 40 waa isku jira 30 waa la helaa 20 waa la helaa 50 waa la helaa mitir waa la helaa. marka qaar iyaga waxaa la helaa baanan duleelin adigu aad duleeshanaysid kuwaas oo kale waxaa lagu talagalay in loo isticmaalo maxaan ku yiraahdaa geedaha waaweyn ee aad u kala fog sida cambaha iyo babaayga iyo waxyaabaha noocaas.